waxaanu weli gudaha kaga jirnaa barnaamijkii wacyigelinta ee ku saabsanaa la dagaalanka xanuunka kansarka iyo sidii bulshada Soomaaliyeed looga wacyigelin lahaa xanuunkan oo saan horey usoo sheegnayba fara kulul ku haya bulshada caalamka oo dhan gaar ahaan dadkeena Soomaalida waayahan dambe kusoo badanaya. haddaba waxaanu fursad u helnay oo aad iyo aad uga mahadcelinaynaa Sadiiq iyo xaaskiisa oo ayagu gurigooda nagu soo casumay. Sadiiq waa nin dhalinyaro ah da'diisu 32 ay jirto. Sadiiq Cabdishakuur Cabdilaahi baa la yiraahdaa. xanuunkan kansarka ayaa madaxa kaga dhacay qaybtiisa loo yaqaano tuumada ama burada madaxa ka soo baxda. waxaanu jecelnahay inuu taariikhdiisa nooga sheekeeyo iyo sidoo ugu dhacay. waxyaalaha aanu jecelnahay inaan ogaanana waxaa ka mid ah sidoo oo la noolaaday xanuunkan iyo maanta xaaladiisu meesha ay ku sugan tahay. Sadiiq aad baan kuu soo dhaweynayaa Universal TV waa kaaga mahadcelinaynaa. soo dhawow. walba ilaah baa kuu qoray alxamdulilah ana ilaahay baa qoray inaa xanuunsanay badaq ilaa waxna qaadan karan ilaa ii dusha kama saarayo waxaadan ada xanuunsatid waxaadan karaysaa ilaahayga korkaya ducayso ilaahu ka aqbal amsho ilaah inuu ka aqbalayo. Sadiiq si fiican baa u sharaxday. ilaahay waa u mahadcelisay. si fiican baa u sheegtay. waxaan rabnaa hadda inaan eegno markii u horeysay sida lagu qabtay xanuunka. marka focus badan xanuunka saarayna sida lagu qabtay sa ahaan jirtay inaad tiri daawo ma rabo pain killer cuni jirtay waxyaalaha la midka. marka su'aashan ku weydiinaa marka imid arkaysa kaybint anoo kubad ciyaaraya bandhacay mara allaaliyo bandhaka kubada qabta wandhacayay way ila yaaban dadkii kubada la ciyaarayay way ila yaaban jibigan degay jibigu uxudhi waxba ma qabtan abanimadii wan isagay karaw wan yar talabsan manakanadhaadam wan dhacayay wan dhitaga talabsan wan dhaca marka xaaskay ii kacayan waxay iigay dhakhtarka iskan computer bala marayay isla markiiba dhakhtarkawgan bala ii gudbiyey waxay ogaadeen xanuunkayga shaka kadibna walay qalay mar buradii waxay ogaadeen ini buro igu jirta maskaxda saddex shakadka dhakhtarkii waxay barasal bukayimid landa ka baxsan ka yimid wuxuudhi UK oo dhan saddex qof xanuunka ku dhacay UK oo dhan saddex qof buu ku dhacay alabdun labadii kale wadhintan ana nool alxamdulilah. markii dhakhtarkii uu kugu yiri bura madaxa kaaga jirto waa lagu qalayaa. labadii qof oo hore oo xanuunkan saan oo kale ugu dhacay way geeriyoodeen.
adigana lagugu yiri maalmo yar baad haysataa haddaan lagu qalinin reer iyo caruurna ay kaa dambeeyaan dareenkaagu markaas sidee buu ahaa maxaa maskaxdaada kusoo dhacayay ilaan baan barayay waayo midun inaad dhinto waxba ma qabsan waa ladhi waribaystada waxaa kaa hadho marka waxba ma qabsan waxba umad carruurtayda iyo xaasadkaygaba waxba umadadhan marka madun inaad dhinto waan ducaysantay alxamdulilah ilaahi iga qaybgal dhakhtaradu xitaa waxay ku dheh 3 bilood kadib wadhimanaysaa 2 sannadood wanoolay alxamdulilah ilaahi wadi qalan waqtan dhimanay iyo meesha ku dhimanay allahu aclam marka duco waxbalba ducay kusum alxamdulilah